1950kii waxaan ku dhashay magaalada Burco dabeed waxaan u guuray berbera ku barbaaray iskuulka ka galay anigoo standard 6 ayaan iskuulkii ka baxay waxaan ku wareegay ciidamada caadi markaan ciidamada ku wareegay adara waxa aan ahaa oo la iga dhigay degmada Kurtuwaare la yiraahdo 76kii xogaya degmo ka bacdi dagaalkii 77kii ayaa ciidamada ku wareegay wakaasanu ka dagaal galay waxaanu galay dagaalkii Itoobiya waxaanu ka galay goray waa dhaawacmay ka bacdi dhaawacii ka dib hadana dagaalkii baan celiyay mar labaad baa dhaawacmay markii aan dhaawacmay ee aan lay cidlada anigoo halkii Allah ayaa maalin waxa la maalinta la heli doono ayaa waxaan aalay 12 caanama halka anigoo Allah ayaa waxa isoo maray nin barida ku guguuranayo ciidamadii oo isla laga tagay ninkii markaanu isku nimi baridu ku hadaafayay wuxuu yiri anigu 6 habeen amba baridaasaan ku hadaafay waxa igu daraa waraabe iimi oo aan oran kari way yur anoo luqadii hadalka aan yaraatay waxaan ku yiri war bal dhagxanii soo ururi ninkii dhaawaca dhabtu ku soo guray dhagxan wii keenay agtaydu dhigay waxba ku fari maayo aroodayga wargeebare isagii abal ciirsi boodi ninkii markii uu iga tagay habeenkii jidku ahaa subaxnimadii baa waxa helay niman orama dabeedna ciidankii Itoobiya hor fadhiya halkii bay haduu sheegi lahaa af Soomaaliga may garanay oo waran lahaa nin tabcaana halka yaal nimankii ninka way qaadeen ciidamadii bay u geeyeen wuxuu waxaan arkay cali baabuur oo halka yaal oo si loo dhinto iyo si kala dhex jooga gariyan waxa isagii gaar lagu qaaday Soomaaliya la soo qabatiyay halka waxa la soo diray niman 16 nin habeennimadii dhaafaciida ka baa la yiri inuu hor jooga ninkii natiijadiisii keena 16kii nin waa yar loodeen aroortii iyagoo isla dhaafa ciidankii iyagoo aan gudmin ayaa waxay saleen ciidankii Itoobiya halka nin baa laga dilay ninna waa laga dhaawacay Soomaalidii way noqdeen subaxii habeenkii dambe ayaa waxa la soo diray 40 waxa la yiri 20 ah ku hadheen ciidankan hore 20 ha gudbeen oo ha doonaan cali markii ay 20kii soo dhaafeen ciidankii hore intaanay soo gaarin ayay baqeen waxay laba cadow dhexdood bay ku jiraa ninkii la maanta ma banoola waana tali waraaba halis ku arnafla doobu u liiti war laba aabur bay ku jiraa aan noqono waxa ku jira inaan ilmaadeer ahayn oo aan aad isku jeclayn yaa marka 20 ka la socda oo loo jeeray farax bidi wuu diiday anigu noqon maayo bi cali yar ka mooyaani marka saacada aan joogo shahadu way ga khaldan tahay hadalka ma oran karo kelmad dhagixii kuba tuuri karo waraabiyo dhiig baa ga dhamaaday ninkii waxaan arkay isagoo idhaafaya isagoo cali baabuurtii leh yar buu ii jiray haddii uu dhabaarayn karayo ama dhagaxa tuuri karayo uu maqli lahaa intuu ii jiray ilaahay isbakaayad anigu arkay isagii ma tusin wuu idhaafay maxaa daba jira ciidankii shalay nimanka laayay ee Soomaalida hor fadhiyay taar bay soo direen ay soo siiyeen qoladii dambe oo ay leeyihiin niman baanu shalay aragnay Soomaaliya ciidana oo na soo dhaafaya iska ilaaliya oo iska qabta qaad koox Sodona ayaa la soo diray oo sarkaali wato oo raaci daba ahaa iga dambeeyay nimankii iyaga oo Sodonkii halkii maraya ayaa waxay baqan yeedhi farxiyo oo lahaa caliyo ninkii soo doora dabeed way u dhaceen in yar markay u jireen iyo ilaahay qum markay qum leeyihiin waa istaag waa maqlaya anigu hadalka intuu ii jiraba ilaahum baa iska tusin dabeed nin buu ahaa shiishahan oo geesiya inay qabtaan bay doonayeen muu yeelin qorigii buu furay ninkii sarkaalka ahaa watay halkii ku dilay nin 2000 ugu dhaawacay labada dhulkii markuu dhigay iyo 28 kale waxay ku sameeyeen dalkumis
halkii bay ku dileen iyadoo aan naftu ka bixin bay waxay fahmeen inuu calidii uu lahaa ay nin meesha yaalla uu ninku doonayo dabeedna iyagoo saf ballaadhana yay soo kala baxeen halkii bay iigu yimaadeen waxay u daray haddaba markii laygu soo dhici waayey ninkaygaa sorgooska ah ee qorigiina laga qaaday ee Soomaalidu ka qaaday aan u dhiibay hore waxaan sitaare aani jirin iyagoo ka baqaya in ama babasito ama baaskoolad way soo geli waayeen muddo markii ay caynkii ahayd ayaa markii dambe soo dhiiradeen hareeraha iga soo mareen bartii bay igu yimaadeen dabeed waxaan xereeyey qafaskii jahaysta aan ciidanka oo aan sitay iyo isteeladii shawraadkii baanan bi'in mid meeshii baadheen isteeladii markay heleen Soomaalida ayay moodeen darajo waxay ahayd ninkan cali waatii loogu yeedhayey waana dhiig baxay ninku cali samatar iyagoo markaa moodaya oo aan markaa hadalkooda cali samatar uun ka maqlayo ayay go'aan waxay ku gaadheen ninka anqaad halkii baa laga soo qaaday ilaa ninkii bisuul dambaysaan ahaye iyagoo nimankii sida ayay idul keeneen ninkii faarax aan wali nafti ka bixin iyo labadii nin oo ninkii sarkaalka ahaana dhintay kii kalena weynada gurayo cabaadayo dabeed faarax bay iska yaag dhigeen labadoodii bay laba naxashay sitaan ku qaadeen ama baleelo ninba sidoo yaqaano Itoobiyaanka ahaa markay taliskoodii geeyeen ayay igu soo noqdeen halkii bay ii yimaadeen faarax halkii intii baqnaayeen ba nafti ka baxday waxa igu daray markay soo noqdeen ninkii meydka ahaa ay sidaa u xafuujiyeen sidii mara la qasaalayo iyagoo markaa naqaska eegaya inuu dhintay ee kale markii dambe inta laad ku dhiftay mid buu yidhi intaa baata uu dhintay moota halkaasay iga qaadeen waxa lay saaray dhaxashkii indhahana waxay igaga xidheen baadhiis taliskooda markay geeyeen oo adinka ay daweeyeen oo ku shubeen xasharaadkii iyo qudhunkii yaalay ka dhaqeen yay taar direen cabirkiina iga qaadeen waxay la hadleen heer waxa la cali samatar baanu haynaa waana serious hala soo gaadho martii diyaarad baa lagu kari helicopter iyagoo markaa iyagu isle waaba cali samatar oo magacaasi nolosheeda caawiyey xukunka ilaahay ka sugo diyaaradda way igu qaadeen heer baa leeyay xafiis bay geeyeen la qeyrtu leedahay dhiig bay ka qaadeen waxay ugu dahayd ragii aanu isleeynay ee dagaalka ku dhacay Itoobiyaanka ahaa dhakhtarkii ay yaaleen baa mid inta laga qaaday oo sariirtiiba laga tuuray yaaniga sariirtii la saaray dabeed dhiig baa lagu rakibay iyo filibooyin waan gubanayaa soo waxaan gubayaa waa dhiig la'aanta iyadoo aan hadalku iga soo baxayn ayaa ninka gaarka waxa loo bedelayaa 2 saac 2 saac baa dib bedelaya showdku wuxuu iga sii ilaalinayaa waaba niman kale aanu sakiifno nimanku waana afgaranayni soo inta way maagayana way caayaan markii dambe faraha iga caayeen oo labadii gabdhoodna ay iga xidhan yihiin seeloontii ayay ashkatoodaro yaayeen ninkan hana la ka qaado haddaana la ka qaadin bartiisaan ku dilayna waxa la geeyay qol laba furaash oo la isku saaray inta la dhigay markaan ku jiray 6 casho aan dhakhtarkii halkii ku jiray ayaa maalintii dambe subaxii ay yiraahdeen waxa tahay operation baa la geliyay anigoo aan miirsan aan suuxsanahay aan wali miirsan yaa magaalada baa Soomaaliya la soo galay aan ku xidhan heer Soomaaliya soo gashay waxa la keenay nin aanu saaxiib ahayn isku ciidan ahayn oo aanu kaftan jiray oo maxamed bare cali loo jiray ninka lug baa soo go'day qolka horana lay qolkii dambe ayaa la dhigay isagu ninka dadan buu uu arkayay meesha tiifa laakiin geeri waa wihayst qolka dambe markii isla la dhigay oo aan albaab lahayn ayaa markaan miirsay baan xawaashigii gaarkayga ay la hadlo waxaan idhi waryaa iikeen waxaan ku kaajo ilaa afkaran ya maahe isagu halkiisii iska taagan yaa ninka hadalkaygii gartay aanu saaxiibka ha jiray ninku markii dhulkii xoroobay oo abahay yimi furinta iyo ciidankii u yimi ayaa lagu qanciyay lafihii faarax ninkii soo dooray way faarax inama kale jiray dabeed lafihiisii aniga leemoodaya la aasay
ninkan anna raggi wax iga aasay buu markaa ka mid ahaa ninkii wuxuu yidhi war waa kuba ninka hadlaya nin aan mooday buu yahay waa kuwa baan idhi kaad mooday cali buu waa la odhan jiray baan maxaad ahay ninkii intaan ii jawaabin ayuu ninkii ooyey war maxaa ku helay baan ogkaasi miyaadhi ma aakhira jira cali sootaan asnay maaha waa meel kula hadlaya waa cali alladii dhibaatada ugu horeeyo soo maray baan ahaye inuu jaawareysay yahay ma fahmi waxa dhig Muxyidiin waa cali maxaa ifki jiray aakhira joogay wuxuu igu yiri oo igu jawaabay de waa dhibaato abahaara waa noo yimaado wada waanu ku asna waxaan anigu waxaan jiifaa qolka halka waa jannadii halkaana waxa jooga qolka kale waa qolka baraamraha ee la soo maraa bal iska aamuso waxa ku iman doona malaa'ig haddaad afkaran weydo ana ka turjumaya iyad ninkii run buu qaatay run ahaantii dhanna ka dawaqsan yahay waxa markaa u shaqaynayay ruush Itoobiyaanka waxa soo galay niman cadaan oo ruusha markaa Muxyidiin wuxuu moogay waxaan ugu jawaabay waliba ku ilin inanka haddii aad afkaran weydo ana ka turjumi ninkii markaa u yimaadeen ayuu Muxyidiin afkaran waayay dabeedna cali buu yiri waa la qaado wali ageeyay wax fiican ba weydiin abadu gorbay kugu dhacday miya wax iraaba qaadatay iyo wax dawaa waxa ka sadaq la wada khaatire weydiiyay intii markaan ugu turjumay yaa dal ku sociyay halkii ana warkayga Allah la qaaday dabeedna waa markaa arsaba la geliya ka soo sheekariyay arsaba markii halkaan la geeyay anagoo ku jira keel ku jira ayaa nimanka Itoobiya noo yimaadeen waxay hadallaan idinka duubaynaa dadkiinu sidoo idin dhageysto ayaan doonaynaa ciidamada Soomaaliya ataan anaba waa nool waana la hayaa isdhiiba waxaan idhi anagu nin furin jooga oo xoriyad joogana hadaa aanu raahno isdhiibna deeyeliba maayo anana in xabadna la ku hayo oo hada kale dhaha oo dhalka si deeraya buu qaadanaya maxaan saliyaha anaga geeriya nool midna badin labadayadii nin dhakhtar baa la geeyay arsaba waa tahay markii halkiina la geeyay dhakhtarkii ayaa laba meelood oo boogaha laga dhayo dhabarada ayaa kala geeyay ninkii askariga ahaa iyo turjubaankii waxay keeneen niman dhowraan wada naag dhay baa la yiri show naagta wixii la leeysan dadkoodii baa la laayay yada nabarkayga dhayba intay faashadii ka qaaday iyo faashad cusub saarta la saar ii dhaybaan idhi walaaladaybaad la sabay tiriyo ragayga maxaan ku dheeyay naagti candhuuf baa ku tufay anigoo xanaaqsan nolol markaa ba rabo dabeedna waa la soo qaaday xash baa lagu soo qaaday awalba gaariga lagu saarayay anoo gaarigii actifa saaxiibkayna aanu wali imanoo maqayahay ayaa waxa ii yimi nin gaari curyaan wata ninku labada lugood baa go'an dabeedna show ninku waa Soomaali anuu ogaadeen reer Cabdillaah waryaadii uu yiri aan madaxa qaaday ayaa idhi wuxuu igu horeysay ma Soomaali baata baan idhi ma Soomaali siyaad baraatay bi waray Soomaali siyaad baramiya Soomaali baana ciidan baata waxa laga qabtado goray diintaada iyo diinta abaha waxa ku sameeyay diinta siyaad baraba marka waxaan u qaataana inuu yahay nin Itoobiyaan oo afka Soomaaliga yaqaana ana intii ugu yiri leeg baan waxaan awal xaadiriyay waxaan diintaada iyo migista xareemayra waxa ku sameeyay inta markay kala gaadhay caadi ayuu jeebka gacanta galiyo beersan gacanta ugu jirtay oo faahitay wuxuu ku soo tuura markay dhaaftay boorsadii ayuu soo gaadhay ciyaankiisa igu soo weeraraya ana aan baridii ku guguuranayo ya labadayadina Soomaaliya ahaa ay iska hayay meesha isweerara oo laba dawladood kala ah madaxa intaan isla gelin oo xabashidii qasal u dhibatay oo kuwiina waday walla surwaalkii iyagoo gashan isku kaaceen ayaa markaa madaxa isla geli lahayn yeedina gaarigii dib ku jiideen ana dib lay soo qaado waxa ku soo celiyay waarkii baa la dhiga ninkii waa isciikaabiyo Soomaaliba ku soo baxday wuxuu yiri war nimanka adaan u warhamin nasiib daro ayaa la qaaday laakiin waxa wanaagsan lahayd adaan u warhataa nimankii yaa ku tusa dhakhtarkii baana la dhigay
qolkuu joogay qolkii xigay baa nala dhiga waxaa naloo kale dhig kaloo maxbuus ah oo Itoobiya ah saddexdaas irood baan qolka ku naalaa ninkii wadooyada wuxuu yidhi niman yahow waxaan idinla dagaalamay burwaqadda akhrista Soomaalidu markay soo gashay wuxuu yidhi walaalkay way dishay xoolahaygana way dhacdo dhibaatadaas iyo waraaqdaas ay timi idina marka taa ciidamadii Soomaaliya nahay baa xanaaq iga keenay iga marka dambana way isciilkaambiyay raalli iga ahada waxaan interkaya way tiraya wana idinka turjumaanaya okay ninkii runtii waxyaabo way buu taray oo Soomaalinimo markii dambe waa yahay halka dhakhtarkii anagu ku jira ayaa laga baxay wadankii markii dalkii laga baxay oo ay ka baxday Soomaalidii yaa leeynimaka herar lagu celiyay diyaarad baa nala soo saaray arda sabaana la keenay waxaana la keenay herar bas baa nala soo saaray markaa waxaanu haysaa haruu sheegay 17 keeni Soomaali kale ma hayno askara markii aanan herar ku soo dhaweyn ayaa wada laamiga ka baydha ayaa nala ku leexiyay waxay la geeyeen guri daara oo sidii iskuul dhisan oo kuraasi leh todobana wax sideedna waxay ahaayeen safka hore afariisato sideedna iska kay horjeediyay halkii anagoo labada saf kala ah oo iska horjeedna ayay meela taabteen albaabkii bay xidheen kuraasidii aanu ku fadhinay buushka ahaa ayaa dab yeeshay ku leeyay anagoo le warku ka ilaahaya waa maxay oo iyagina dabada nooga baxeen ayaa waxay taabteen mooyaane waxaanu aragnay anagoo hawada isku dhaafayna ilaa kursiga kow marka laga bilaabo ilaa 304 way ku dhamaanaysay inta kursi baa soo waliba wareeg ku sameynaya hawadaanu isku dhaafnay markii ay dhamaatay intii kursi ee aanu korantadu waday aanu dhamaynay ay xagga dambe waxaan raacay aqalkii isbalaqay markii aqalkii isbalaqay waxaanu ku daadanay meel yar ciid wanaagsan leh anagoo aad moodo askar istirsoon wanaagsan oo loo dhowr jiifta oo ninaan ka dheerayn ayaanu saf gudboon u dhacna nin waliba leenka kale arkayaaye arab ka nin waliba la daadinaya laba ciid bay naga tumeen waxayna siiyeen laba keenin oo dawaqaada ah iyo habad kooka ah soo meesha aad garoonba ah dhul ah ayaa ku yaala halkana waxa jooga rag badnayno sodeneeya yaa fadhiya beel halkana waxa ka muuqata waa beel ay tag moodo taboolay ku xidhay ku safayin soo taboolay waxa ku qoran laba mari karo dabeed beeshii bay fureen oo birbaasi ay isla u kala maroojiyeen dhulkiiba waa kala carro godkiiba lagu gureen halka waxaan ugu tagnay nimankii Soomaalida ahaa ee la qabtay ka baxaydii nimankaas noo sheegay in sidii loogu jiray wadanka ruus soo galay dabeedna laga baxay annagana badankayaga lagu soo qabtay adagoo si socda jidka ciidamada waxa sii deeyay waliba ruushka oo ma ogolaan ka baxay in la qabtay inta yar qarsoodi baan ku kaayay ruushka ka qaranayo bayraad marka 946 ka ragii hore ahaa ee 77 ka ahaa 946 ka nin aanu ku ahayn la qabtay 77 waa la qalay waxaanu kaga badbaadeen 230 waxaana la isu kala cisi hilibkii walaalkayo halka markii aanu joognay oo halka ay noo marayso ayaa meeshiina la ka saaray muddo guriyana la geeyay waxa ragayagii halka joogay annagoo laba saf ay naga dhigeen qolo dambe oo meel gooniya ku hayeen na qol geeyeen anana 17 ka hayeen hore ay qol gooniya geeyeen oo ay markaa ku xisaabtamayaan nimanka hore ee la qabtay waa la tusi karaa unity list oo waayo dagaalkii hore lagu qabtay nimankan si ka baxaydii baa la qabtay sharcigu waa sii day karaa ee nimanka kala xasayno ay leeyihiin oo laba meelood ku kala xidhanahay iyo halka dhakeereen meeshu dayr ma lahayn garabtii dambe ayaa waxa anagoo nolol ku nool oo ay 3 casho mar ahaan noo keenaan
laba xabo dhoobi aba furina ay nasiyaan oo aan shaa lahayn cunto kale lahayn oo halka aan iskaga noolahay silic ayaa habeenkii dambe waxaan maqlay rasaas ka dhacaysa magaaladii aan ku xidhay heran magaalada meel ka dheer aan ku xidhanahay waxaan la hadlay ninkii meesha haystay waxaan waa maxay badaafiic la dhacaysa wuxuu yiri waa ciidii islaamka waa ramadaan baa dhamaatay marka waa loo dabaldegayaa dawladda u tirsan badaafiicda waxaan ilaahay iga yeelsiiyay waxaanu nahay muslim inaanu tukanaanu doonaynaa ee ma nooga shahay maxaan idinka helayaa buu ilaahay baan ku baryaynaa inuu jannadii ku geeyaan janno uma baahniya waxaan ma helayaa buu ilaahay ii weydiinaysaa darajo inaan helo haa baan idhi oo ku maqayaa buu yidhi haa baan masaxaysaa buu yidhi haddii la waayo dhibaatada ku hesha haa baan idhi ilaah baa iga hadlinaya wuu iga saxeexay dabeedna wuxuu yidhi soo baxa 17 wuxuu yidhi baydha markuu baayoodina geeyey meel ay ku baydhaan askartooda aan meedhanay ayuu ciidankii yidhi ha tukadeena idinku ilaaliya ciidankii kale oo ilaalinaya ayaana waxaanu aragnay raggii kale oo ka furay albaabkii oo yara meedhanaya uu noo yimid wuxuu yidhi caliyow nimanka saaxiibadiina lama ogola inay is aragtaan laakiin way idinla tukanayaan wax wada hadal ma jirayaan gadaal bay marayaan xagga dambe safka dambe idina xagga horaad maraysaan wada tukada mana wada hadli kartaan way heebaan 17 nin baan wariya ayaa ina tujinayo salaada inaga saaraya anigu markaa u diyaara inaan tukano anigu wayga fursad weyday markaan ahayn 17 nin arigii baa waxaan u diyaar garoobay inaan tujiyo anigu wadaadkii tujinayay 16 kalena fadhiyaan safkii hore ayay nimankii soo wareegeen ilmaba eegi kareen markuu gadaal mareen ayaa nimankii kalena istaageen salaadii baa markaa sani bilaaba halkii ay salaadu ka bilaabmay lahayd baa markaa nawatu usalli marayay yaa go'aan gaadho waxaan wariyaa iswaraysta dinu soo noqoto mooyaan jaanis kan isku waraysta salaada halka markay maraysay waa nawatu salli ragcatayn ciid al-fajrati mu'akkadati warwaxanu nahay anagu 17 mu'akkadati ma'muman intaasi waxa weeye ururka waa guutada waa horinta intaasina waa guutada waa ururka waa horinta intaasina waa saaq intaasina waa darood intaasina waa wiye Allahu akbar nimankii Allah salaadu bal qabsa Allahu akbar bayraad sidii aan ugu tujinayay yaanu 17 geeynin warbixintoodii aan dhameeyay anoo ku dhameeyay markaa salaada matalaada ah markii aan dhameeyay nimankii go'aan islamaan ogeyn ismana gaari karee ayaa waxaan u fikiray sidii aan u heli lahayn nimankan kale barkooda dabadna waan helay يا waxaan بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وأن ولا مركز سوس انتهي نك كهرية وربحنت هذا وسوديب الله أكبر تبع سجودي بكرة شيء وربنيك كأدنى أي وربحنت هالكوسي مركز وربحنتي كلا قاضنا كلا دم سناي اللي سنية فرطونا كلا جران ما نك ما كان تبيان كيه الظهر مرة يسوع أنا وركي كلا دم سناي يعني صادي سيدي وحكة بحي أنا كبحنا markii aanu ka baxnay soo waxa ku jira nin af xabashiga yaqaana badan dambe dabadii buu taago wuxuu maxamed istargaami iga turjubaan ali waxta salaadu waa tukateen waana nu balanay darajadii hadii aan waayo wixii dhacaarigu shaqo ku bari waxa ilaahay ga yirsi bil faatixada imara in ilaahay iga soo asturo uu kala xareeyay habeenkii aan oo isla fiidka lagu baxaya ayuu markuu tagay loo xadriyay dadku markaa waxaan u sheegayaa markuu isku calool yahay ee islaam yahay walaal yahay dibba yahay in laga aqbalayo wax ilaahay wadiistaan waan u aragno waanu aragna fiidka anigoo soo kula baxaya buu yimi isagoo furin ama dhaabo jawaana sida iyo six gaara ali markaasuu yiri daaqada fura daaqadu furay ilaahay iyo sabal wa saaxiibi
درجتنا والهلا الباب كفر بيري راشق وحلا سي جوان كي فركاها يا سيجاركي بربر فوق بدر قلده كلوغي ونugu soo noqdo wuxuu barit waxaan ay qalayaa ari iyo jaad wad maxsuumaya wada maxsuumay albaabkii uu noo furay ninkii adaba wuxuu keenay inuu waliga bayda darajay qor mudayar markii ay joognay biyo wuxuu cali leela falib dayq iskaabir weydii ilaahay darajada bay hadii la waayo oo darajadaasi de suurtooy weydana halis baa ku jira war iga daabaalidi adigu markuu dhikii ila culoobay ayay saaxiibaday war faataxadeedii baynu bari doonaa ilaahay baynu bariye iska war keebaalidi buug iyo warqad iyo dun wuu keenay lacag keebaalidi 600 oo bira oo yare la gubayo baan gaadhu ka gubayna naf baan noo furban u dirayna marba wuu keenay waraaqdii baan si qaraasay qoray nacaalatullah ala sitig baan alla yahdiik 1000 marra nacdalaha kugu soo degto ku jeer walaaya ku dilay waan la laabay hay baan iyo bikitaada gin waraaqda dabacada cashana todobada dhagaxtu hana maydhan todobada casho hana cadeen waxaad helaysaa baan idhi 2 bilood oo habeen la baan u qabta xabadu xula ayaan gidaarka ku qoraa 1 iyo 2 iyo 3 tirina iyadoo wuxuu i karay macawis yar iyo oo ilaahay ku seexo gabadha cafaya libis ya garan ee dharka leeymo goro tuuti baan qaba wuxuu cali doon mid kale waxaan ku uri ta kale waxay ku xidhan tahay shuruud ba ilaahay yiri shuruudda ku xidhan tahay waa adoo muslima iyo inaad halka ku kala joogno joog 2 jeer buu dabca dabeed wuxuu yiri lacag igu bedel ma dhacay sabaan yiri oo ilaahay ma aqbalino ma yeelayo iska wadbuy ninkii waxa ka horeeya marka hore timirta waxbarasho iyo shuruud go kristada uu gooyay ku kaadi uu ku kaajay waxaanu baray shahaadadii markuu shahaaday xeedaankii soo galay baanu nidhi waad helaysaa darajada waxaad ku qabsanaysaa madaxda ba migisti oo baashba adaa qabsanaya laakiin cid ma sheegi kartid been idin sheegi maayo ilaah baa iga hadlinayeen maalintii ku sadxahay maalintuu muslimay baa darajadii si naagtii baa su'aashay hadaba hadal oo qabay waxay tii war muddo aan gaadhin 4 bilood yaa 3 jeer dalacda dagaal la baa tagay kuma dalcin darajada xagaad ka heshay nin weliyo halka jooga oo ilaahay wada hadlaan yaa arsaaragno maxaabista kamida ilaahay buu ila hadlay waaran muslimay waxaanu igu yiri migista waa ka qabsanaysaa dawladda waa muslimay hadda way cidna haw sheeg naagtu waa fashisho waa qaylisay ninkii markii muslimadii si loo ogaaday baa loo yeeray waxa la baada muslimo diinta ka baxay ninku marka waa raaska migista marka waa kornayl darajadiisa ay tagtay kabtan buu ahaa 3 jeerna wuu dalacay waxa weey waa kornayl waa tahay waa loo yeeray bada diinta ka baxay baa leeyahay haabu ka soo tashaalay 3 jeer baa sharciga in la weydiiyo oo ima wuxuu yiri war sidaas ay ku dhacday adkaysa baan ku adkayso oo ku adkaystay 3 jeerba marba muddo soo qabteeno ninkii waxa la darajada waa dhigaysaa waana la xidha waxa loo soo bedelay mid kale ba oo la xidig la anaadkii iyo balaayadii buu nala galay ninkaanu halkii isku baranayna meel kale kaxee anoo halkii aadu joogno ayaa ninkii wuxuu xidhnaa wax yar gamal dabal siiday sagoo muslim salaada tukada ninkii markuu jeerkii ka soo baxo dhaxda marayo ayaa wuxuu yiri meel gaari ka dhaqaaqay ayaan boorso yar oo lacagta ku arka kayra waxa ku jira $4 kuna show dadka soo degayay meesha bari jiray
malaa ka dhacda ninkii guri buu tegey xaafad Soomaalidu leedahay gurigu ka kiraystay Solomon buu la baxay ninkii wuxuu tiray aad u jeclaaday sidii aan isku arki lahayn meeshana ma iman karo ninkii lagu bedelay buu suuqa ka eegtay ninkii bay saleen wuxuu ninka ii keen arrimaha hawshiina ugu sheekeeyay adoo kugu balabanaya soo wax kula qabto ninkii baa ii yimi wuxuu yiri Ali waanu saragnay saaxiibka waana ii warramay waana ku geynayaa hadda brito dhakhtar haan baan kugu qaadayaa isxanuuji صبحي بان تاهي أو إجريس تصورات مري تورد قاتشو وحنا هاي نين دعايو لقتي باي حنونسا حكيم بيت فلي قال لي اختار هاي لقي قال لي سبي يقول قاضي داقله أضلعي قول لي سبي يجي وحنا تجديك النور يا خميس كشن سوتشودي كل شيء أو وتجي بقى سوتشودي كجريكتي حافظ الإسلام كبر كاسلام والله بحاول تقانا ninkii xaafadu tagay laxnaaga dawacday hilbaahi inay soo iibsatay ayuu macaashay laxdii buu yiri war gowrac xaafad buu yiri kariya jaad buu idray halka adagoo fadhida ayaa inantii beerka noo keentay waa Soomaaliyeed soo waxaaba dhashay inan islaaniya iyo tukrigi ku ogaa meesha waana noqonba markay ilatii haybsatay الهيبتي إسلامته هي ده نقضي إسلامته وشيكته إسلامته بقيت بيه وحجرتي وذي أوجي ده بجرته أدوجو نكى بيجو بلبيجي نكى وحلقة بيجري وفي كمان تقلنا وصاحب دوتي نكى وحول درجة دي إبرو درجة دي مدة كرهتي مركو حلاي وأولي هي وادي حاتي ليس أبو دادي وين أفتا يعني نك مثل بعض حدا ضل دونته أبدا دباطه تيلا بعد بيدو والله إحنا ورناك إلى هاي ديدي زباد قايد سوي جرانيك وجرح هذا وحيوق جرح يقولي اطلع ذكي إلى لنا يي بعض صاحبني نقول أكسبها زباد كثيرات بيقول قرقوا سكتورو وحري عليو داسد هالكات على داسك كادي وحنا ندور يا خمري واحد ما أنت لودي ويقلنا عيدا كيجي أنا خمري ما ندورنا يا سيتو ننكي إنتو بقنا يا كثيرة دي يقول راستا قعنتها أنت أمع معي يتكلم يقول راستا تبعد قوتها كتالي أو ذكر هات تاركو بريهي ينتاركي الكاكو قبتي وان يرفيقي سبريكا هوسه كثيره درسكلي يدوا جيدو way baxda waa furaatar markii katiirada iga furatay yaan albaabkii inta fadhiistay haraati oo sakaturo koriya dib u isku dilaa laadkii dabara waa isbalqayba marka hadda waa igu baqli baday waxay markii albaabkii jabiyay wadi dhaawacata oo bas cod kartid maskaxdu daraf ma aha oo لوكي كلا جرميسيد نمكي اسكو درتاي war maxaad yeeshaa aniga oo sili ku kaadi daasadii meesha taale ku kaaci jiray yeeshow kaadidba waxay ku socotaa sibirka daasadba kuma hayo waa direerto ay gashay gobashiiba waxa ka ciidanka isriyeeyo khamraysan oo ordaya sida labaabka isku taagay beer cabaari jirta iga horeysa ilaa waxa iga horeysa waa ilaa 200 talaabo beerta haddaan galo inta u dhaxaysa haddaan la arag waa badbaadi karaa waan istuuray bismillaahir rahmaanir rahiim tawakkal ala allah wa kafa billahi wakiila baan idhi waana shahatay dabada war suura anoo isla barogaya ayaa waxaan galay beertii markaan istaagay way qarisay intay dhar ka qabto soo beertu waa dheerta magaalada koodar baan ku xidhana aagaan u baxsan lahaana waa ku aadantahay beertu waan dhaqaaday waan socday ma waxaan ku jiray saacad ka qiyaasay waxaan hadda nasiib darro tahay waxaan sitaa direyska Soomaaliya tuuti haddaan tuuri lahaa tuutaha oo isqaawin lahaa
oo nin waalan iska dhigi lahaa iyagu Itoobiya ninka waalan way qabtaan waayo iyaga basaas u dirta dadka waalan ninkooda waalan calaamad buu leeyahay shaambada ku taal oo ibn Maraada waa nin waalan haddii shaambada la waayo waa la iscon mayso dabadna maryahiga iska dhiistay goorta aan baxay waxay ahayd ilaa kowdii baa ku qiyaasay saacad masidan waxaan meel saxara cidla ah ayaan u baxay sidii nin duulaya oo kale ayaan u socday waxaan galaystay habeenkiiba waxaan galay buurale habeenkii buurti baa ku jiray 12 habeenkii waagu markuu bariyay may ha waxa gabalka habeenka dhan guuran aha waagu markuu bariyay ayaan buurale galay habeenkii dambaan ka baxay marka habeenkiina waa soconayaa maalintiina waxaan dhuumanayaa diyaaradaha dul socda leeyahay sawir wada oo doonaya Itoobiya marka waxay tii Soomaaliya kama hayno ciidan sida barraa wuxuu leeyahay ciidanka Itoobiya wana ciidanka ka jawaabo migista xala bari marka wuxuu halka laga baqayaa inaan gudbo oo hadhow ay ku fashilbato Itoobiya haddii Soomaaliya u nabad tago sida daraadeed ba aad lay doonayaa ciidankiina waxa haysta ciidan koofi casa ya dusha ka haysta migista wuxuu yiraahdaa haddii cali la waayo gobolkaba waa la waayay siyaad barraana mishinka ka dambeeyay aad baa lay doonayaa hadal yaan kugu daalin markaan marayay shan habeen iyo shan maalmood ya habeenkii lixaad oo guuraynaya ayaa waxaan ku soo baxay finaalkii u dambeeyay ciidanka Itoobiya soo ciidankii Soomaaliya way sar fadhiyaan habeenkii halkaas ku arbushaan markii aan dhageystay ee hadalkoodii gartay inay Itoobiya yihiin yaan dib u baxay waxaan sidii xagga ka wareeg dhinaca kale ka wareegay bidixda gaga cadalay anigoo halkii soconayo isla wareeg ayaa waxaan galay beerta waxaa jooga nin ciidanka ka tirsan oo saddex aliflaa wuxuu istaa hal bacha la yiraahdo taad buu gurayaa ciidanku u soo dirtay waana baqaya oo ka baqaya ciidanka Soomaaliya inuu meesha ka afduubo dirayskii Itoobiya waa sitaa ya saddex alif loo xidhay dabadkii markaan isku soo baxnay YouTube buu soo igu shiday dabad wuu naxay ana waan naxay markuu isla dirayska arkay inuu Soomaaliya yahay annakii arkay dabad farmay gula hadlay abo si dhiftay bii xagaad ka timi afqotaga mawqon dabad waxaan ahmaariya tijlaale bataqana xawshiga بدم تجلى لا أضمن قابوي قد يا صاحب حقات كتير waxaan isii daabiya ka badaa tuulada aan ka imi haddaan sheegan lahaa alafki waan garan balahaaye ciidan Itoobiya ana jarajaradii garan maayo ciidan haddii aan sheegan lahaa shibila iyo dagaana balabaad iyo waxba jiro kaana deema hayo meeshan maray hadii wadii xitaa baaran gareen magaciida dabadlinkii xagaad ka timi buu yiri magaalada aan ka ibaray tuulada xagaad socotaa buu ya tiraale xagga horaan u socdaa baan yiri ninkii yaabiye wuxuu wali karwanani Itoobiya dilay islaamku sita Soomaalida ciidanka xana way ku dhow yahay saad yeesha wuxuu dabcay ninkii inuu celiyo wuxuu meeshu oodanta wada male saaxiib soo laabo xagga u soo laabo wuxuu ciidankii soo arkay ee uu ka tirsanaa ayuu dabcay xaqiisii inuu celiyo ilaa soo arkay baan haye waxaan sima saaxiib anigu waxaan Itoobiyana كزاري بدم ضده وان عبسنا هي نفاسه جلات تجبت يسوراجو وان عبسنا هي دبي هو انا ودعيسا وان كدافيا ني توبيا هي بنان نينكي هذا وحي غديا صاحب ودا ما جرتي سو لابو markii aan iskari weynay ayuu ninku wuxuu tirigalay bal inuu ibatiyo dabay wuxuu hanjabay iyo xays uu ka daraya wuxuu yiri sima wariya suuga nagarta sabajoog doogaha gumad doolano hada kaba maqan miyaan ku gaadimayna maanta oo dhan hooyada wasay sooday intii soo laabana kuleena dabeed waxaan wariyo nin baatina ninka ka cabsan markaas aan sima anta suuga nagarta sabajoog aduu doogaha gumad doolano hada kaba maqan haabu hooyada wasay iyo sadalay intii raada aban
ما دبي وطات الصومالي بان اسكر الصوماليات بان هلطي أنا قرب بضا طيب بضا لي هديها هذا يبضا حبض باي بنسا شيء كان عنك شيء مستر باي بجرا نكي له يروح ويقول لي أنا عيدا كان كايمي أفطوب نعه بس كل دست لك هو شريه وقربضي جيتها قل يا صاحب جيتها تليه يا قرتها شوي خالق هو كوق فيه ما كان كذي كيرو بقي بوحنوه رئيسي إسقاط مرتا ترو أرد سيف تنو كذي مركو دقي بالي تبلس دبوا لابو فريسو هو فريستي سيف تبى قاطي وحان سيدي كورتك جول لبدا قطع عود السيج سمو لأن نفس كلام هاي سيدي مركان سيفتي دول قبطي وإيش سيد عليه هاي وأنا وبهرتني كأنه مثل هاي إنه قال هاي إسكا كترول ما مالس حيبانو دين تلوا بحيبان لي ملك الإسلام بي ترى ملك الإسلام باني كل واقع على وضع إسلامك وأشهاتي ويجحرت لما يدلكو دي دلكيسي لينكي فريسة باني لي لبدا قرب بانك كلاروجي طوطة قوقع سيفتي لبوا هايستا رد بكر لا الصومالي ترو إلى عيدمada Soomaaliya sootiisa baan show ciidamada tooska sana lagu soconayay dhinaca soo kale iga xiya ninku wuxuu mooday ciidanka inaan garanayo oo dakay dadkii ciidanka Soomaaliyeed ila qabta abaar ninki barkuu siday oo ila hangalaynayo ayaa waxa iska tusoo dayixii maamka ahaa markii hore aan ku soconayay ayaa gees kale ila noqday qaasi ninku waa ku xiriyo Itoobiya ku xiriyo waani وردايحي هرتينها maxaa gadaal bariyay iska ana shaqika garaash firruud iska bir dayq anigu ma ilaahay bana mabsaday xamdira warka ilaahay day weydii maskaxdu way wareerto markaa roon baa bixinaya maskaxdu wash balbaani fadhiiso uu fadhiistay markuu fadhiistay bartii oo nasanayo ayaan wareera waxaan arkay ninkii abadu galo leeyahay waxaan hayaa askari Soomaaliyeed baraha toddobaad ka lay qabtay oo ninkii madamcaydu soo boodo oo ay qabto ayaa maskaxdii nafsi tada hada fiiro badalo waxaan idhi fadhiiso kornay Soomaaliyeed ahaa dagaalka la igu qabtay tabeed waxay soo daayay dhiman idin ka mid ah waxay dhahay Soomaaliya hadda tagto waanu ka daawaynaa baaskoolada iyaga soo siiyay واحد وانتظر كوك وانا إنه إلى الصومالي هو يدي وحن هاي أنا ونين توبيانا ورماء صدقني بانو هركا كنت وقنا يحيي كلا لقرية توبيان كهاي ورمضها وحلا قبسي الجرية يدقالك مركا أنا قوينا نكره السنة يوان وقهي لكن وحلا دي لي حاس كي عروتي صومالي دي وحي ربي كوتي تا يسيده أما آخره دتك الله لي دي قب دبجيس لكن وان داريي إلى وكيل إسلام كي شاكتايه بس يدعي سيريبو ستوير ما كوي قدر قوة أفوفي لكن يأي ساكسدين قدودو دوا كوريا بعدين وحي نبا هالكا يقو أفطوي فاصولات بو يقو قبطي تبعنا إقاد بو يري بيوو حكوشتاقي هدبا اللي يسيدو كوسيو دايبا لوراني هاي انتا توريبا كسوات بحيبي نكونا ندعوها مديريني إن بكرة دوي هاي لذلك هلا قطع رول لا يبي تورين لك درار مو نقضي وحلا يحب مدافع ستبي أجي سبارة أي حاجة كنت هاي سومالي لو سوتش وابتي هالكا بدل بس يعكدو أي هبكو تردرو دعي أنا وأج بدي شيء أجي هذه إذا ما ذكر بجناين وأكبر لي مال كجود سبان قالي مال يربى برحمة كذا طبعا بركي دجال في تكسري بالي ودك بحلعي ذيكي ونعيدنا وأج بدي لكرا لبضة كورنر على مرة لمن تضبط أي وتا أي دبص عضو يا صوم رجيت يبرتي أكتري لمن كبرك أي دافين أي جوا كدم بيا درت في حلية واسبطار شاب الباشي أيو أي ستة أي ولما أنت وشقيي أي درجة على صياح دبت بركي لمن كده في بأي قد العيي لمن كي وصادق لين أتوا على وقت وحلي جيي مشودي من مال بيبتعها كقيل أيو بركة شابل قال أي لي جيي
وحي بالدقن ارتقى سوق بيسو شاري معويس بو يديبي شاد لا سوق غربو يدي عانا لو aad waa baysi loo baabay halkii markii aan fariistay baan hadalkooda waxaan leeyahay shaaliqe waxaan ku weydiisanayaa ka codsanayaa inagoo iswareeysan doona in badan jaad baan cunini in muddo ilaa aan marqaamo aan lay wareysan hada kale iga xiro waayahay buu yiri anigoo markaa wixii isku hagaajisanaya aan ku hadli lahaa inuu iga qorayay aan isla isku hagaajiso anigoo halkii fadhiyo ku qaylaya ayaa ninkii muslimnimada ku soo daayay oo faanayo oo ciidankiisii saruqaad qaadaya yimi ani aan basaaro shan faalobi ninkii libaaxay ka reeyay waaniga bi dabeed ninkii muslimnimada ku soo daayay waxaan bafidro caynata telegram ahuna telegram bariga hore anigu adoo kale ma hadli jiray ka ku hadli maayo aroska tag خالقي بعد يلك يعني له هذه دبده هو بحبي أرض كتجويدي شالق باني إذا كان صوريسن ما كدريس كي جاركتو واحد قصوا قاعدة أنا هنا عدو وبا والبدو له أو عينو كلا ده هاي إسكولي ده سيدا الدرادي ليك كان وح سؤال شرع أنا حري وحسيب سؤالي يا سؤال ليك كان أنا سودايي waxaan ku soo daayay masarka saa ku afduuba in maxbuus rawaab ah soo baxsaday ninkan masarka ku afduubay muslimnimada ku soo daayay yiri saddexno muslimiina ku joognaa xerada darajadan ma waxa loo siiyay qabyaalad oo been buu sheegay miisa isku qolay xiliya iyo geesinimo kuma qaadan halkaas ka amrasadaan ku amrayo wixii aan awood leeyahay sharci ayaa talaabo ka qaadi haban ninkii wuxuu yiri niman xoog leh شق بالوحدة هل كانوا كعبادية ليكحيه وحلقي صبحي بركي واقو بريي لما نقول رأي فرتنا مقالة ليكي تبعدنا مقالة دي با عريش كايرا فريسو مقالة قالوا لو تشوا وحبين وحي من الصوبالي وضيع ننكي وضيع وحي أفكع أصبح الله يسلور بالشيبان هاي إذا هنا كتب علي سن مركو هوري وركاقا وكرد يكسلها ونمكنا أيو الرمي إنا تكدوا ولا تكشي كيسلوا ولا قيابا هداد لبطنا كأني ما تقول بطاية إلى هذا أقول سنو مقالة وحاب يرى أنا عليه يدق عليه يجريه تدك أنا لا يمشي الدجاجنا بقول قف بيجاران تدك أنتو سوق على مقالة ده وحنا كتر كلايا كتريا لحبوا يبيي إجا جارسية بيجري بيرتو بقراشات بوي كراي يعانو إسلام مركبة هذا هي كوي كراي سوق ده واسكت سومالي وكله تارباني في دري إثيوبيا كها ديار باقي إثيوبيا ولا وضع بقيسة وحين بدحها هاي مركب قاعد دقلها عن كبح صغير ديار ده يقول قادر وحين علي ده وحن نقاع صنعنا رجعنا ما سمعنا إيه يبانا كوهر زين اللي قبي هذا بقى وحن نقاع صنعنا ده وحين ده بقى لها ويانا ناس عد كله شيء يمكن وحين يسيء اللي حب قال قابل كتب بروحان سيستاي فرن إيه حلوة بالي صوصي تبعد أنا وساعد كذا جاي يكسبها هيل في القارئ صوصي البالي بعبا كسيتا يرجع وحيا يجيب الله راعي ميش الدل خليجي مجستبر كلي يسوق أبي بالي أروق مجست نمان هاي لهذا ماي مقالد بوا ود التبديل مجست وحي أنا عيد مصودي ريا وحكقرة من لهذا الكلام تلو لما كي وحن وشلي صدح يطبل لبقى الفلوه صحيح دباد إلى هاي يجي لو الضفير عيال كيس كأه وحى نعضي نباش عديس لي رهبه أيا مركو جورسي لصو صار مركو أنا قال ورثي لي على وحولي لعكت يجي سيي ساعة يوحن راشك يجي سيي وكاد ضبابنا النبي لهذين أريد بحال كتير تبويرا أنبيقو أنا فرمان بويانا فاقنا مترو حللا فرمان بيقان سيدا بنسكوري سكرا وانا لو يري نيكي وحان لي لو كلا تركبه أنا قاعد سفكر دوني بعد عايزين والله بنبيننا هاي أو عيدنا ولا بدو اللوت كلا دولة إثيوبيا إن دولة الأساس سياسة إذا كسبنا ندبعني تلقى مشرك أما وكدعي سبا أما وفلا
على الأذيك أبوه على الأذيك يا سياسة أفريقيا ما كلها طليني واحد كلو عن شيء يا باش هذه حبش يقول يقانا كاسان اسكو أفكارنا إنه يقانا محابيس ما يقمرها إياه إذا كيسي والله درباحه له هنشبي تبى دور قابيل إلى هاي وحكيرسي ميدان أنت صدق طبعاً إننا هاين ميدان كوبية طبعاً لبان كرهبايو كوبية طبعاً أينا نسكو قلنا الصومالي هذه قد دوت ماذا ميدان العقد يسين العقدها يراشكر ما يكسينا إيش كي كسبنا ساكم بخاطر فري مجلس وحولي هل الدلوني ما كهلا لايو علينا يا نفر التابسين هل لو صوروا شورنال هل صاروا ذلك فالحمد لله دلي nimanka inay tay ninka Soomaaliga cadowga aynu haynay oo si daayeen laba tir baa la qoday nimankii waa lagu xiray anigana wali hor fadhiisiyay soo kamarad baad xagga dambe ga taal waana la sawira nimankii la laayay arigoo ku sawiran ayaa joornaalka ku soo baxnay Unitenishka ICRC jimcada leeyahay waxay doonaysay inay aragto mar quraani xiran oo Soomaalida ah oo dagaal lagu qabtay aad bay doonaysaa markii subaxii joornaalkii ku soo baxay magaaladii ayaa saddex nin heleen ayay ka tageen Itoobiya Kenya galeen Unitenishka begelyo weydiisteen si aan waddankayga kaga soo go'sanayna wacaynkaas bali iyadoo aan ku daabacnahay joornaalkii ayuu la soo qaaday Unitenishkii waxa uu yimaadeen migistii Xayla Maryam way u keeneen waxay yiraahdeen cali baabuur baa loo baahan yahay oo birisna oo faraha Maxmuud Dagaal la qabtay waqtiga ka jawaab wuxuu yiri isuba علي هدوء بدبارة هلا عديو هدوء عدارة هلا مذبي ميل لقول تسي كرارة هلا جي يرسو قبو يري قارب الله يبقى هذا ليه مشي يجي تبعنا حمام بيجي ميله رئيسة تبي بيجا قابيل وحي مربى كلر ما بايبو فيرا عن صباحها لك يجي أدمو يسيس دل تكيرك مركي اللي قبتها تدل تكير منها يا داعي الرجال سور بي سوق هذين ويحلين وحي جايين راس هدل يا راس هدل وتضبط تيش بولي هي والله ساري فوق سران تجي سروت وامريكان على ودي وانت بالي محد دوريسا شو وحي هنا بدل طويل هذا على سيو مجد وحان اللي ورياه دل باتهي لك بك على توجنا يا شعب وها إلا سيسة كوتيو حبي أنا تصل الله سبحانه بيسيو ده عاول توجنا يا ده هذا دار رحمة الله وعلى كتاب قرآن أنا إيه كنا كاد يسيجار إيو وداك دوحي على وسط البلية وما أنت أنا يجو وناك سريد راحوا يقولوا بقدم بدني كعسكري جاء إلى شو جا حموجا يروح إليه